wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay ikhyaarey dhegaysta oday duqoobay baan ahay waagii dilaacana da'yartiiyo carruurtii waxbay daawanaysaa dulmi bay arkaysaa dar alle sidee baan dawladnimo u baraya hooya daacad oo kuu diirnada dadka laga xushaa yaani yuyu ali oo heesaw war waxaa la yidhi awrka dambe awrka hore saanqaadkiisuu leeyahay markaa odayaashu wixii ka qaldamay iyagu haysa saxeen markaasay dhallinyarada saxi karayaane war mayle erey lug damba hoob lug hore dhaafta magaaja jabo waa la ere kuriitahtaha been hoob odayaalkii kudoo dheegi waayaan jabo meelan yaala warnimayo waxa la yiri isku duubni shacab iyo ummad kala dambaysiya qarannimo wax dumiyaba in dulmigu ka koow yahay ruuxii dafirayo diintay ku taalaawana shay daliil kala dunidaynu joognana in qof nool la dili karo waxa keenay damicii qaabiil dardarayo hootada u daabo walaalkii ku soo diray maantaana dabadeed dhiig la iska daadshay xaq daraynta geerida asaga dalool kule loogana daysanaya dalkeenana kacaankii hortii madax la sharci iyo dastuur liyadna dawlad kuma ridin xil awood ku doonkiyo damdamtiyo iswaalkiyo caadada duqowdoo sii darartay maantana asagaa dugsi u furay loogana daysanaya war mayleeray hadle magaarka diidaa sameeyay duduleela ku ursadaasee leeri lankun anti gu'e usa jiro dhanba qaran dumisa haada jiri waranaa war ma haysaane arrintii galmudug waa hagaagtay baa la yidhi madaxweyne xaafna dhuusa mareebbu ku wajahan yahaa la yidhi odayaashu meesha uga hortay markay ka ordeenna wax walba waa ogolaadaa liir darbay noqotay caashaqa inaan daba gurguurtee oo yiri war doctor shaakir madaxweynimada uu sheegtay uu la orday xaguu la aaday warnamiyo maysiin warsaday mudan ra'iisul wasaare sheekh shaakirkii erijari kuwaanu inay wax soo wadin markaan garan waynay shacabkanagana aan u turnay anigiiba madaxweynima iska dhigay inta ka dambeeyay hilmaamay war madaxweynenimada shaakir bugay ahayde midda xaaf sharci ahayd aryaada xaaf hore wuxuu u yiri anigu galmudug caanaheeraan wax ka rabaahe carunkeera ma rabo waana nin odaya minow ka soo laabta diidmadina waa toosan yahay warnimiyo may kala siin warsaday reer galmudug halligeel oo qeyraha siiyeen inta ka dambeeyay war hashaas ama baarlamaanka loo qalay aryaada baarlamaanka hashaad sheegaysiin ka hor idaal loo qalay degmooyinkoo dhanaana loo kala qaybiye war afayeenka galmudug taardhuleed wuxuu yiri war idaa aad sheegaysa 4.5 miyaa loo kala qaatay war afayeenka galmudug taardhuleed wuxuu yiri madaxweyne xaaf waa soo socdaa waana sugaynaa waa u diyaar garowna waa soo dhawaynaynaa warnimiyo war ma haytana goboladii dalka oo dhan dagaal oo faran isku gubida ka dareer oo dagaal qabiileed marka ma erafaday adduunyada samir aakhir jee hadhowaad yaa ka aleelankii sagiir goori sa'iiri sadlanku weela doona saas ogaada arooda dadkan waa waashteen saqiira la dilaa la leeyahay say wax u jiraan aryaadaha waxbaha ku wareerina hadda ka hor nin salsalay wuxuu yiri safar alla ninkii siraya nin saqiira gowraca sidii ay lahaayeen waxba lala sugaaya warnimiyo qarnigii 20aad Soomaalidu iyada balaayo u yeeratay iyada barwaaqo lagu jiro adiga ma joogtay war ma warkeeda ay soo gaareen in dhageysanayo hadraawiyo maansa tirinayay wuxuu yiri balay doorkan maanta aadaan daacad ku ahay abwaana badan oo noocaas oo kaliina way jireen balaayadii wadanka way timi buul walba way gashay masaajidkii bay gashay qarax bay keentay tan walba way noo dhaqaad bahashan inuu ka ducaysanaa loo baahan yahay waan ka ducaynayaa maanta aamiin dhah wuxuu yiri baay balaayo hadii baray lagu yeedhay oo baaqa ku diray ragii adiga ku baahday badow bay ahaayeen kuwii buunka ku tumay barayaraha roobka curto barisamaad joogno oo maalka baadiyaha dhalay weelka laga buuxsho oo lagu bariisanayo nabad beeshu wada taalo diin lagu barbaarsho ardadu barata aayaadka bandarka iyo suuqyada iyadoo
beec la gadanayo amaan dawladnimo buuxdo oo madax bannaan hayno buntukhiya markaad boobihiiyo baas isugu dhiibtay beelbeella loo kala baxay reer isugu baantay oo la isku baalbaalay ay qaraxday baaruud naf baxdiyo wixii beled burburay biniya daaraaba barkhadda iyo xoolaha wixii bixisa loo keenay waxay taladu biiqbiiqday oo laisla bogan waayey imisaa badheer loo diloo baadil lagu toogto imisaa lixaad beelayoo bira ku boodaya imisaa intay barakaceen bacad u soo saarta imisaa bartii laga dhacoo gacan bannaan maanta bay hoofka gaajada intee dunida baa haysta imisaa barbaar wiil ahaa bad isku biimeeyey imisaa bilcaan dhowrsanayd bi'isayoo baydhay allaylehe ba'aagiye la arag balanbalkaagiiye dadku inuu badbaadaan rabaa baaqigii haraye burhaantii qur-aankiiyo bakhriyo bariya yaasiinka bisinkaannu kaa magan galliye boqorkii weynaaye naga guurbalaayoy annaga khayrka yaa badane aryaa gaboos nooma ducayna waa nugu digatee allaha nugu kaashar tiro anoo kan daco ka badanee booyad maa ku wadayne abdulow naga guurbalaayoy annaga khayrkeennaa badan bisinka iyo bilaahi arraxmaan aan kaa magan galnay waa eray hanasado aan hayna leyow hortamadayow taasu waa duco aamiin kowdhe waxuuse ka hor sheegayoo dhana waxay ahaayeen wixii aan isu soo samaynayoo dhan uusan hal ka reebin run sheegna waa ceeb sheeg aryaa warnimayo xaajada karoona waa soo kululaatay waddamadii keligii talisyadu ka jireenna fursadu u noqday karoone ay dadka ku qaarijiyaan oo iyagiyo karoomuhu markaa maxay dadka isku dhaamaan war karoona waaba laga kaca ama keligii taliya laga kaca war keligii tali usina dhimashi ku adag ilaahow yaa qora isiya aan kuwaan ogahay karoonuhu ugu gambade warwarkaa naga dhex gelinine madaxweynaha filibiin qofkii guriga ka soo baxa hala toogtou yidhi kii ugu horreeyey ka soo baxana maanta madaxa la jebiyey oo hadda guryaha filibiin oo dhan maliif baa saaran aryaadhaha madaxweyne filibiinka la sheegaayo ewalow raba inuu dadka laayee waxaan anigu dhihi lahay isugu tukub tirarbo taasuu tuusaaleheedaha isugu tukub tirarbo taasuu tuusaaleheed aha maaho abdulow aamiin allah koo aqbal jinaw aroomadeeyo adigu waa falan tahee koonfur galbeed looma dacoynin warwar ma haysaane guddoomiyihii gobolka hiiraan cali carraale weli waa diidan yahay inuu xilka wareejiyo markuu asigu la wareegaayane dabaged inta diiday ayaa dad ku dhintay marka anigu waxaan la yaabay guddoomiyihii gobolka hiiraan loo magacaabo xilka markii laga qaado muxuu iskugu dhejiyaa warnimiyo anan mayba su'aale oo kamahdii ay makadegaa waa dheega jiri xilkun beledwiine oo madilin magacaaba lanka jeeliye madilika degaawnu laga reeradaas may hayti war miyaan hore loo odhan dhadhan shaawaalan dhergaana ka daran aryaadhaha anigu waxaan la yaabanahay gobolka hiiraan cali carraale yuusuf dabageed cali jayte cabdifitaax xasan afrax cidaan ahayn ma loo waayey maxaa loogu celceliyaa iyaga mase waxaa maha ka jirta arbeledoo ma la maqlaytiin qaajaan lahayda lacag la siiyaha warwar ma haysaane warkii hore war soo dhaaf haye ma doorashada wakhtigeeda lagu dhawaaqay war beelihiis dhammaayeen dhahdiyo nabadlishal dhikay ma nabadii noolaa xisbigii weynaa ku dhawaaqday war ma diyaaradii baadiye u socdaa la fasaxay araada duurkii nabadoo maalayna ugaaraan dante war waa buubteena dhegaystannimayo safiirka maraykanka soomaaliya u jooga donald yamamoto war weynaa ka soo baxay war haddii beeli lihaad anu soomaali may baanka baaqane abuu mansuur hurinimadiis haysii oo eray war ma doorashada wakhtigeeda ha lagu qabtuu yidhi war dawladda miyuu musuq maasuq ku eedeey war deeqihii soomaaliya aan sii jirnaan joojina miyuu yidhi asbax war hana waalinina warka naga sugta donald yamamoto wuxuu yidhi haaruun macruuf waa weriye xushmad leh oo u shaqeeya v o eda kana mid ah weriyaasha ugu saamaynta badan soomaaliya wuxuu kaloo intaa raaciyey nabad sugidduna waxay weerar cad ku qaaday madax bannaanida warbaahinta oo aas-aas u ah dimuqraadiyadda iyo dowladnimada warnimiyo mayka aaley yamyamoota madii wariyaalkii boorjo badley wariyaha hagdhoorkan nagaw nagadenga ngaraawi warwarka nabad sugidda ka soo baxay wuxuu la mid ahaa ha arkin ha maqlin hana sheegin loomana dul qaadan karo war anugu waxaan xala ku riyooday barnaamijka haaruun macruuf oo galka baarista oo sir aad u xasaasiya lagu soo bandhigay wiiggan gudihiisa war mayba dheegi jiray baadida nin baa kula daydayi daalna kaa badane oo aan doonaynin inaad heshid daa'in abadkaaye dad badanaa reed mayba eri jiraana waannu ku raad joognaa waannu soo qabanaynaa haani iyo haayanga kaalayno dembig iyo nafti waa kaga daado doona madeeyo waa wareersan tahay doolar yamyamuuto ma sheegin haane haaruun macruuf waa laga gardaran yahow yidhi war wiilkii fogaaneegaha wuxuu yidhi aryaadhaha fogaaneeg waaga ma noolaay haaruun macnaha loo handaday haatan lala yaab warwar ma haysaane suldaanka guud ee salaadiinta somalilan suldaan maxamed cabdiqaadir wuxuu yidhi waxaannu nahay kuwii ingiriiska heshiiska saanta kaga qortay badda masiirka ummaddana talaannu ku leennahay
wadahadallada somalilan iyo soomaaliya salaadiinta waa in laga qaybgeliyaa midnimada ummadda soomaaliyeedna waa lagama maarmaan ummad yahay midnimo mayalka u adkeey aan maqli jira kama maarantiida midnimo ummad yahay midnimo ya dheegi jiraanina war maanta waxaa fiicnayd in muuse handaraab agtiisa ay joogtaan war suldaanka hadda amuu liintii qawdhan sheegi jira cabi war hal suldaan kaliya maahayna salaadiin badan baa hadashay war wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda somalilan wuxuu yidhi dadka yaambeen loo sheegan inay ictiraaf raadina weynay warniyo somalilan ku afgaran maysee ka baxa afaaraheeda adigaba heer koonfur ku afgaramaanya afaarahaanya ka bax war mahaysina guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wuxuu dhagax dhigay ex baarlamaan wuxuuna yidhi sidii hore oo u dhisnaa jira ayaa lagu soo celinayaa warana may badhiyaabana dawladdun jidkii afgooyaha maran dhehe ay dhisu waytay minadhalatiyona shiidaniinka aruuriyaasa aryadaha aniguna waxaan la yaabanahay si dadkii la mari lahayoo dhagxalleesaga soo naqnaqaayo war ex baarlamaanaa la dhisaya aan ku dhahnay war meeshii la dhisi karaa la dhisayaae dhismaha taageera horta ex baarlamaan haddii la yidhi sidii horea loo dhisayaa dadkii hore ku shiri jirana waa in la keenaa war haddii la dhiso maxkamaddii badbaadada miyuu noqonayaa mise baarlamaankii hore war golaha shacabku waa tii la yidhi turkiya dhisaaye ma ka noqdeen inaga aqalka in la dhisa annagu ma jeclin sababtoo ah waa kiina lagu khiyaameeyey war ma haysiina wasaaraddii caafimaadka oo waayahan koronaha raadinaysay korona musuq maasuqaa laga helaa la yidhi qaar badanna waa xihan yihiinaa la yidhi qaar kalena waa lagu daba jiraahaa la yidhi horta kaalay dawladdaanu dadkay musuq maasuqa u xirtaa agaasimo ma dhaafaan miya waryaa wasiiradu waa loo soo socdaa ee naga joog war qof weyn laguma degdega waryaada yaa miskiina miska la fuulale miyaad ka wadaa war kuwa waaweyn yaa la xisaabtamaya war maxamed deeyo wuxuu yidhi cid kastoo wanaagga fasha waa la abaalmariyaa waatan la yidhaahe yaa kalamaan abaalmariya marka aniga waan ka shakiyey ma kalamaanu hees u soo wadaa war abaalmarin kalamaan sugi maysaa nabadgelyo ma helaysaa war ilaahow bakshiish kama rabe ha igu gelin baadiyo uu yidhi war maxamed deeyo waa dadaalay laakiin laga yeeli maayo ara maxamed deeyo naar waa inaas joogaaye karaanafees ma ka nabadgeli waryaada anugu waxaan ku talinayaa soomaalidu dawladnimada inay la heshiiso oo barato aryaada qaylo lama rabe maha nugu kala wada faa'iida ma lihidiinoo anaydan aqaane war udurka jira iyo aafida ilaah noo koriyo oo laada gabiil ani waxaa idinkugula talinaha maalin walba balaayada naga dhaafa horta warkaad warrantiin dagaal xaad ugu dhammaysiin war yaa ilaahay nooma keena karoona faraha iska dhaqa war kala fogaada allah idin korshe karoonaa ka ducaysta